السلام عليكم. waxaan halkan idinkuga hayaa qiso jacayl ku dhacday gabar waxay ahayd 31 July 2020 habeenada kamid ah barteeda Facebook ay qoraal soo dhigtay qoraalkaas dad badan ayaa ka soo hadlay waxa kamid ahaa wiilka qisadan ay dhaxmartay comment ayaa ku wada kaftameen wax badan ugu dambeyn messengerka ayuu kala soo xiriiriyay wuxuu ku dhahay waad taqaanaa waxay ugu jawaabtay sidee intaanay ugu baratay kadib ayuu ku dhahay wiil dariskiina ayaan ahay Facebookiisa ayay dib u raacday wax walbana dib ayay ku ogaatay wiilka wuxuu dhahay aniga xaafada ma joogi Boosaaso ayaan joogaa qardhana aabahayga ayaa degan markuu iskuulka isoo xirmo oo kaliya ayaan imaadaa waxa la gaaray fasaxii wiilkii gabadha ayuu wacay wuxuuna dhahay qardha ayaan joogaa aad ayay u farxday gabadhii habeenkii ugu horeysay ayay kulmeen waqti fara badanna waa ay wada qaateen markay kala tageen dib ay iskula soo xiriireen kulanka habeenkaas kadib xiriirkooda meesha ayuu ka bilowday muddo badan waa ay wada socdeen ugu dambeyn wiilka waxa la gaaray waqtigii iskuulkiisa la furayay wuu baxay gabadha waxay sugaysay sida hore oo kale inuu soo xiriiriyo balse midaas ma aysan dhicin wiilka isbedel fara badan ayaa ka muuqday waqti walba wuxuu leeyahay waa mashquulsanahay waxay u ekad noloshiisa inay gabar ku soo birtay waqti ay kala aamusnaayeen kadib waxa la gaaray fasaxii iskuulka wiilka gabadha ayuu soo baxay wuxuuna dhahay waan soo socdaa gabadha ayaa dhahday markaan aniga Boosaaso imaanayo wiilka wuu ka aqbalay wuxuu dhahay haddaad Boosaaso imaato habeen walba xeebta ayaan ku geynayaa dalxiisna sidoo kale waan ku wadayaa way tagtay 2 habeen iyo 3 habeen ayay xeebta waqti ku soo qaateen habeenka afraad maba uusan iman xeebta way wacday wuxuu dhahay waa mashquulsanahay caaba habeenka xiga wuxuu dhahay banooni ayaan jiraa mar walba cudurdaar been ayuu sheegayay ugu dambeyn gabadha waxay go'aansatay Boosaaso inay ka tagto way baxday muddo markay qardha joogtay ayuu soo wacay wuu raali geliyay ayadana way ka aqbashay waayo waa naf wax jecel gabadha familkeeda waxay go'aansadeen wiil dibadda ka imaada inay u guuriyaan wiilkaasoo eedadeeda dhashay ayadana way ka diiday balse ayada suxun ayaa loogu qayliyay waxayna isku dayayeen si qasaba wiilkaas inay ugu daraan waxay wacday wiilka xiriirka kala dhaxeeyay arinta jirta ayayna u sheegtay asiga wuxuu dhahay arooskaas marnaba raali ha ka noqon haddii aad guursatana waan isdilayaa gabadha waxay ku wareersan tahay wadadii ay raaci lahayd tala ayayna idinkaga baahan tahay wiilka ay jeceshaa miyay raacdaa mise wiilka familkeeda ay u dooreen waadna ku mahadsantihiin la socoshada inta aad nala socoteen qisadan bilowgeeda ilaa iyo dhamaadkeeda